السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaanu ku jirnaa jawi kale waxaanu joognaa magaalo banaanka Yotobori ah oo Okero la yiraahdo halkaas baan aniga iyo saaxiibkay Qadar oo kaamirada gadaal jooga filimkan ku duubayna hadii Ilaahay raali ka noqdo waxyaalo yar yar oo kooban oo waxaan rabay runtii ballaaran laakiin isku dayay inaan koobo ayaa jira oo rabay inaan dadka aan kala hadlo waayadan dambe waxa badatay coronavirus-kii iyo Soomaalidii oo mashruuc laga dhigtay oo qolo walbaba ay ka hadlayso Soomaalida iyo sida cudurku ugu faafo mar dhaxdaas ah oo aan ka hadlay in dadka ku shaqaysanaya ama hungurigaba ka galay inay Soomaalida dhaleeceeyaan ama ay caayaan ama ay muxuu ahaa iyagoo mashruucyo ka dhex arkaya ka qoro waxyaalo aanan ku haboonayn Soomaalida ayaan jeclaan lahaa inay waxaas ka waantoobaan kana digtoonaadaan waxa dhacday dhacdo kale iyaduna waxa dhacday iyada taas ku saabsan oo magaalo Vesteros la yiraahdo ka dhacday magaalada Vesteros gabar xildhibaanad ah oo xisbiga Center Party-ga ka tirsan xisbigaas anigu waan ka tirsanaan jiray mar hore laakiin hadda kama tirsani sababo kale awgood ay kuwan xataa ka mid yihiin ama ay ka mid noqon karaan waxa ay soo qortay wiil Soomaali ah baa ii yimid sida warqadeeda ku qoran wiilkaasi tiba wuxuu uga sheekeeyay maaragtay waxyaalo Soomaalida ku saabsan oo ay ka mid tahay in Soomaalida cudurku ku faafo wacyigelin ay u baahan yihiin wacyigelintu wax xun maaha qalad hay fahmin anigu wacyigelinta dhinac baan ka wadaa wacyigelintu wax xun maaha qofkii heli kara inuu يعني قرش دولة كذا قاتو إيه ذا لفت هذا وحن معها عيب معها إلا قرش كاس أنيقو مهل اللي هنا دا أنيقو هلا يسيد إلا هكو سيادي هكو بركيو لكن واحد حن أو أنكسو هرجيدا أو نعبهاي أو سومالي ذا بدن كود إنتو ذا أي ديدين هي وحوي إن عاد سومالي ذا كتل مامتو وح أيسن أهين دبعتها جرتا وح أيتها معناها قفكي سئو kiiskiisa ama arrinkiisa u xoojiyo ayuu wuxuu liidayaa dadka Soomaaliyeed gabadhaasi xildhibaanada ah waxay soo qortay in Soomaalidu ay yani cudurkaas ku faafo in tacsiyooda iyo dhaqan ay u leeyihiin macnaha inay isu tagaan oo ay maaragtay lagama maarmaan tahay waxa ay qortay oo kale in yani meydka gabdhaha dhaqaaya markii ay dhaqaan معناها بيهي أي كل دقين قبل ناس ميت كأ إن يجونا إسكو دقان هدي ميت كونية هنا رجع دقاي يجو لفتودنا إن أي ميت كاس بيهي لو دقاي يجو لفتودنا إسكو دقان باكم بدهيد وحكم بدهيد معناها إن Soomaali دونا إن أيهين ضد عن ألفابيتا معناها ضد عنا وإحنا قرن وإحنا آخرين oo sidaas darteed loo baahan yahay in laga faa'iideysto wiil kale Soomaali ah oo iyada isla xisbigaas ku jira oo yani ay tiri wiilkaasaytii aanu kala kaashano si aanu isbedel u sameeyno isbedelka in la sameeyo wax xun maaha waa fiican tahay wiilka Soomaaliga ah in la kaashado iyada lafteeda wax xun ma aha laakiin xildhibaanadu waxa ay mas'uul ka tahay waxa ay qortay iyadoo warqad kaleeto markii la qabsaday warqad kaleeto ay soo qortay ay leedahay wax walba aniga dusha saartay ma garanaysaa wax walba aniga dusha saartay oo qalad baan fahmay halana la iga raali ahaado anigu waxaan ka mid ahaa warqadaas qoraalkii waa la ii soo diray waan akhriyay waxaan ka saxayay grammatiga Swedish-ka iyo waxyaalo baan ka saxay warqadaas laakiin asalka qoraalka ah aniga ma qorin waa la keenay waxa la yirinayo naga akhri waxyaalaan ka saxay waxyaalana ugu dardaray waxaan irsidaa ku geeyay ma sha Allah sidii baa lagu geeyay warqadii markii la geeyay raali gelin bay soo qortay maalin baa la kulmay maalintii dambeetay ka noqotay waxay tiri kulankaasi maadaama cudurkii uu maartay kulamada la doyday marka idin lama kulmi karo على كل حال شيكadu waxay socotayba niman baa waxay soo qoreen Somali Swedish Paraply Organisation waxa weeye waa ururka dalada Soomaalida Vesteros Swedish-ka Soomaalida ah ama Soomaalida Swedish-ka ah baan dhihi lahaa Vesteros ayaa warqad u soo qoreen warqadaasaytii halkan baa idin soo saari doona insha Allah inaad idinku xataa aad ila akhrisaan
Swedish ku qoran horta Swedish poor ah waaye aad u liita midda kale to Swedish kaliya kama hadlayna warqadaasi waxa ku qoran waxa weeye yani duulimaadkii marka hore meel baa laga kacaa meesha laga kacayo oo dadkaas ay ka duulimaad tageen baa waxa ay tahay yani in ay gabadhan raali gelin bixiso iyaguna ay Soomaalida intay u tagaan waxa ay ku leeyihiin Soomaali samheelad anagu samheelad ma nihin Soomaali group baa la dhahaa ama waa koox Soomaali ah ama waa macnaha minority baa la dhahaa samheelad waxa la dhahaa dad meel wada degan oo isku dhafan macnaha meel wada degan dhamaantood ba samheelad la isku dhahaa hala kulli xaal Soomaali samheelad inay u tagaan kana dhaadhiciyaan raali gelintaadaas ee ka dhaadhiciyaan gabadha waxa la yiri raali gelin bixi raali gelinta hore u bixisay wax cusub maaha of course raali gelinta baa kala ah waxaan qiimo lahayn baa lagu daray raali gelinta laakiin raali gelintu mar hore ay bixisay waa waxay hore loo ogaa waxa la fadhiistay nin communal roadka ama maayarka degmada waxa la fadhiistay iyada iyo gabar kale oo isku xisbigaasii ay kamid yihiin oo secretary ka ah iyo waxa la fadhiistay qof kale oo xisbi kale ka socdo runtii ma xasuusto exactly xisbiga ninkaasi uu ka socday insha Allah warqadaha dan baan ku soo qoraya halkan baan ku qoraya xisbiga ninka uu ka socdo iyo magaciisa halkan baad ka eegan doontaan hadii Ilaahay raali ka noqdo waxaa jirta يعني qofka marka aad u tagaysid oo aad la gorgortamaysid ama aad la hadlaysid waa inaad ka duushaa waa inaad ujeedooyin qaas ah aad wadataa waxaan markii ugu horeysay ay dhacdo ma aha gabadhan Janice baan u haysanay xisbiyadan iyo dadkan macaynaya Janice baan u haysanay in aanu muxuu ahaa runtii farta ku taagno isla markaasaytina aanu ma aha mid argoosada laakiin aanu ciqaab aanu marino annagoo ka duulayna inayna waxaan mar dambe hore u dhicin waxaa jirtay hore aanu kala dagaalanay gabar xisbiga Venstre partiga ku jirtay oo la dhaho Amina Kakabave waa gabar Iiraaniyad ah bay ahayd Soomaalida iyo Muslimka aad wala u xumaysay naagtana exactly sidii oo kale tay martay wax ay isu ka dhaamaan naagta ay dhatan kale ma jirto gabadhana Muslimka caysay inkastoo Muslimka anagu aanan wakiil u ahayn ila Muslimka adduunka oo dhan la wadaaga laakiin Soomaalida anaga wakiil u ah Soomaalidu waa wax yar oo kooban waa dad yar oo kooban oo la og yahay meesha ay degan yihiin jinsiyadooda waxa ay tahay laakiin dadka islaamka jinsiyadooda waxay tahay lama yaqaano meel kasto deganaan kara China deganaan kara Mareykan buu deganaan kara Australia deganaan kara Afrika iyo Yurub iyo meel kale deganaan kara yani laakiin Soomaalidu waa la og yahay dadka jinsiyadooda waxay yihiin annagii Soomaalida ahaabay ijaafaysay nacaysay waxa ay kale too nacaysay diinta islaamka maaragtay iyo dhaqanka ritual beel yiraahdaa macnaha waa waxyaalaha caadada u leeyihiin dadka bay ka hadashay waxaan isku dayaa insha Allah cajalada inaan idin kala gooyo maadaama haday ugu dheeraato lacala waxaan isku dayaa inaan idin kala gooyo qayb aan idin kaga dhigo isla clipkan dadka ma jecel runtii cajaladaha dhaadheer sidaas darteed gabadhii ayada markii ay qortay waan ka xanaaqay runtii dad fara badan baa ka xanaaqay nimankii iyo dadkii isxilqaamay oo tagay oo shirka la yeeshay oo meesha fadhiistayna talaabadii ugu horeeyay oo ay qaadayeen ba waxa ay ahayd in ay Soomaalida qanciyaan ma aha macnaha inay yani ku qanciyaan gabadhan waxa ay rabto inay Soomaalida ku qanciyaan anigu waan dareemay markii hore oo warqadahana la ii soo dirayay la iga qayb galiyay oo warkana aan wadnay waxaan u arkay inay yihiin dad Soomaalinimadu ka go'an tahay dad aslan bar raba inay maaragtay waxaan isla gaarnay xataa heer aanu qolo DU la dhaho discriminating ombudsman aanu ka dacweyno waxaanu ku talagalnay xataa inaan ii sheeg booliiska aan xataa dacwad ka geyno oo dhahno gabadhan waxay sharafkeena ayay meel uga dhacday waxaanu ku talagalnay rabnay kuna qornay aniga laftayda Facebook aan ku qoray inaan dhahno gabadhan shaqada hawa ka tagtaba uma qalanto ma garanaysaa yani arrinkii meeshii aan ka wadnay iyo duulaanka meesha aan kaga soconay ma aha meel kale ka timid anigu ma raba inaan wax u geysto ama cay iyo hadallo xun afkayga ka soo baxaan oo qof kale oo Soomaali ah aan farta ku taagtaago laakiin waxa laga maarmaan ah in la sheego sababta bedeshay duulaankii meeshii aan ka kacaynay sababtii bedeshay maxay ahayd
arrinkan insha Allah hore waan sii wadaynaa cajaldan waan kala goynaya anigu magacayga Yaasiin Cabdullaahi baa la yiraahdaa waxaan deganahay magaalada Göteborg ee dalka Sweden inta aanu barnaamijka qaybta kale oo soo socota insha Allah waad sii dhageysanaysaan inta aanu barnaamij sidan oo kale aan ku kulmayno waxaan idinkaga tagayaa warsan iyo weersan